libaaxyada cadcad ayaa sidoo kale ku jira halis in ay baaba'aan, nasiib darrase waxay ku dhintaan yaraanta, sidoo kale waxay ku ciribtirmaan ama ku ciribtirmi karaan muddo ku dhow 15 sano. King 252. kulanti wacan wanaagsan daawadayaal gebi ahaantiinba halkani waa janalka King 252. ku soo dhawaada gacmo furan haddii aad iminka nagu soo biirtay fadlan subscribe saar gambaleelkana furo si aad ula socoto warbixinada dambe ee aan soo dhigno. asxaabtii hore noola joogana haddaa ka mid tahay waad ku mahadsan tahay la joogistaada. warbixinteena maanta waxaan kaga hadli doonaa libaaxyada caalamka oo ah kuwo aad u kala duwan, sidoo kalena qaarkood ay ku badan yihiin qaaradda Afrika. waxaan ka bilaabi doonaa nambarka 9aad libaax loo yaqaano Barbary. libaaxyada Barbary oo sidoo kale loo yaqaano Atlas Lions ayaa ah noocyada ugu waaweyn libaaxyada hadda ka jira dunida. libaaxyadani oo ah kuwo aad caan u ah run ahaantii waxayna u muuqdaan libaaxyada ka socda Disney ee loo yaqaano The Lion King. libaaxyada barbariga ah ma aysan baabi'in in muddo ah oo ma aysan dabargo'in, weli waxay ku nool yihiin oo lagu xanaaneynayaa xadiiqooyinka xayawaanada. libaaxyada barbariga ah waxaa la mooday in ay dabargo'een oo ay ku dabargo'een dalka Morocco, laakiin muddo 60 sano ah kadib ayaa waxaa laga helay waddanka ay dariska yihiin ee Algeria. nambarka 8aad libaaxa madow. waxaa laga yaabaa in dhowaan aad aragtay sawirro wareegaya barta internetka ee baraha bulshada libaaxyada madmadow. libaaxyadani ayaa lagu arkay iyagoo taagan saxaraha oo u muuqda kuwo aad u qurux badan. weliba dhab ahaantii ma rumaysan karaysid libaaxyadani in ay yihiin kuwo jira. si kastaba ha noqotee runta murugada leh ayaa waxa ay tahay in libaaxyada madmadow ay u muuqdaan kuwo sawirro been abuura, laakiin khubarada ku xeel dheer libaaxyada madmadow ayaa aaminsan in ay yihiin kuwo been abuura, balse waxaa kaloo jirta in ay dunida ku yar yihiin libaaxyada midabyada kala duwan sida caddaanka iyo madowga in laga dhaxelo, walow ay dhici karto in sida bini'aadanka oo kale laga heli karo libaaxyada isku dhaf ah oo midabkoodu uu yahay caddaan, madow ama maariin. nambar 7 libaaxa cad. waa mid lid ku ah caqiidada caanka ah ee lagu yaqaano libaaxyada. libaaxyada cadcad waa kuwo intooda badan lagu tilmaamo inay qabaan albino oo ah cudur ku dhaca dadka bini'aadanka xitaa, oo midabka ama kalarka ama timaha ka wada bedela oo qofkaasi uu noqdo qof aad u cad. sidoo kale libaaxyada cad ma lahan timo midabo kala duwan sida timaha madowga ama gududka oo isku dhaf ah. taa beddelkeeda libaaxa cadka ah waa xayawaan aan caadi ahayn, waxaana gaar u ah xaalad aan caadi ahayn oo ka jirta boqortooyada libaaxyada. libaaxyada cadcad ayaa sidoo kale ku jira halis in ay baaba'aan, nasiib darrase waxay ku dhintaan yaraanta, sidoo kale waxay ku ciribtirmaan ama ku ciribtirmi karaan muddo ku dhow 15 sano. marka ay aadka u yaryar yihiin waxay u nugul yihiin in la soo weeraro haddii aysan ka agdhoweynin waalidkood, oo waa kuwa isha ay qabanayso oo inta badan ka dhex muuqanaya hawdka iyo keemaha ay ku dhuumanayaan, waxaana inta badan barbar tilmaameedsada sida dhurwaayga iyo libaaxyada kale oo iyagu ishoodu ay qabanayso. nambar 6 libaaxa isku darka ah. dad badani ma oga inay yihiin xayawaano dhab ah, laakiin kuwani ma ahan kuwa mala awaal ah sida sanabyada. waa qaybo badan sida xayawaanada la isku daray minidooda, waxaana la isku daraa inta badan libaaxa iyo sidoo kale shabeelka ama taageerka sida u taqaanid. waxaana halkaasi ka soo baxa ilmo isagu isku dhaf ah oo markii aad aragtid niyadaadu ay ku soo dhacayso talow ma shabeel weynaadayba mise waa libaax. taana inteeda badan waxay sameeyaan khubarada ku xeel dheer xagga xayawaanada in mini ay ka soo qaadaan mid ka mid ah xayawaanadaasi ayna ku beeraan libaaxa oo kale in lagu beero inteeda badan ay u badan tahay. taasina ayaa waxaa loogu magacdaray libaaxa isku dhafka ah sidaad ka aragtaan sawirka iminka idiin muuqda. nambar 5 libaaxa Hercules. libaaxani waa kuwo aad u awood badan, sidoo kalena weerarkoodu uu aad u culus yahay. waxaa lagu soo qaataa sida filimada khatarta ah, waxaana ka arkaysaa sawirrada iminka kaaga muuqanaya shaashadda. waxayna libaaxyadani ay muteysteen in lagu qoro bugga caanka ah ee waxyaabaha maajiga ama aan caadiga ahayn lagu qoro ee Guinness World Records. magaciisu waa Hercules. libaaxani hidawadaha u gaarka ahi waa 1.3 inji ama
3.5 oo dherarkiisu uu yahay waa mid aad u ballaaran, miisaankiisuna waxa uu ku dhowaadaa 450 kiilo, waxauna cuni karaa qiyaastii 14 kiilo oo hilib ah maalin waliba. waa libaax u baahan in si qaasa loo dhaqaaleeyo, mararka qaarna waxa uu noqdaa saaxiib aad u wanaagsan marka si wanaagsan loo tababaro. Number 4. libaaxyada loo yaqaano Cincinnati waa kuwa ka mid ah libaaxyada ugu caansan keymaha. Cincinnati waa noocyo aad u waaweyn, waxayna samaystaan boqortooyo intooda badan laga sameeyo dokumentariyada filimada ee aad daawataan, iyagoo raxaraxan u socda, waxayna u badan yihiin keymaha Koonfur Afrika. libaaxani wuxuu caan ku yahay badbaadiyaha runta ah inteeda badan, sida laga soo xigtay National Geographic, iyo inuu yahay libaaxa ugu caansan dhammaan libaaxyada Koonfur Afrika. horaantii sanadkii 2007 waxaa la arkayay qiyaastii 20 libaaxyo oo aad u yaryar, waa kuwa si dhaqsi leh ku tarma. hogaamiyaha libaaxanina waxa uu jecel yahay in uu maamulo dhul baaxadiisu ay aad u weyn tahay. sidoo kale waxa uu jecel yahay in dhowr dhidig ah in uu u dhaxo si ay u tarmaan awlaadiisa. waa kuwo inta badan ku xisaabtama in ay yeeshaan familo aad u waaweyn. Number 3. Gabbalionis. Gabbalionis waxay intooda badan ahaayeen kuwo khatartoodu ay aad u badan tahay, aadna looga cabsan jiray keymaha ay ku nool yihiin. waxay ku noolaayeen qaybo ka mid ah Afrika, iyagoona iska hor imaan jiray intooda badan libaaxyada loo yaqaano barbari oo aan horey u soo sheegnay oo ku jira nambarka 9. libaaxyadan waxa ay dhex mushaaxayaan meelo fogfog oo Koonfur Afrika ka tirsan xadka ugu dambeeya ee qaaradda Afrika. xaqiiqadii tan waa sababta loogu yeero Gabbalionis, maadaama ay asal ahaan ka yimaadeen Cape of Hope Good oo cirifka ugu dambeeya ee qaaradda Afrika. waa dhul buuro iyo biyo badan leh, haatase ma jirto cabsidii hore looga qabi jiray, waxaana la xasuuqay mar aan sidaa u sii fogeyn. waxa ay ahaayeen kuwo aad looga boqo sannadihii hore, aad ay u ugaarsan jireen dadka reer guuraaga ah ee ku dhaqnaa xilligaasi Koonfur Afrika. Number 2. libaaxyada Itoobiya. Itoobiya waxay ka mid tahay waddamada ugu cajiibka badan dunida. waxay hoy u tahay libaaxyada Itoobiya oo ka mid ah libaaxyada adduunka ugu dhif iyo naadir ah. dhowaan sanadkii 2016 waxaa la helay libaaxyada Itoobiya iyagoo laga helay beerta qaranka. hadda waxaa lagu qiyaasaa in ay gaarayaan 100 ilaa 200 oo libaaxyada Itoobiya oo ku nool waqooyiga galbeed ee dalka, aadna ugu dhow xadka Itoobiya uu la wadaago dalka Suudaan. Number 1. Cave Lion. libaaxyadan ayaa ah kuwa ugu fiican, sidaa daraaddeed waxay noqdeen kaalinta koowaad ee liiskan. waxaad la yaabi kartaa sababta loogu yeero libaaxyada godka. waa kuwo qolfoof ah ama waa hore dhintay iyagoo god ku jira ama hurda, laakiin waa libaaxyo jira oo adduunka qaybo ka mida ku nool, aadna u dhaadheer. waxauna gaarayaa dherarkoodu 2 mitir, halka culayskooduna lagu sheegay in uu gaarayo 370. waa tahay asxaabta janaalkeena la xiriirta, waxaan filayaa in aad kala barateen qaybaha kala duwan ee libaaxyada caalamka ku nool. kuwa ugu badanna waxay ku nool yihiin qaaradda Afrika oo dokumentariyo laga soo sameeya, waxayna yihiin libaaxyada kuwa aad u jecel in ay samaystaan dhaxaltooyo iyo boqortooyo, iyadoo mararka qaar laga yaabo in uu aabbihii boqortooyada ka dhaxlo markii uu duqoobo. libaaxyada dabeecadoodana waxaa ka mid ah in ninka aarka libaaxa ah uu u dhaxo dhowr haween ah, isagoo markaa kaga gol leh familkiisa inay bataan, qabaa'il xoogganna uu ku yeesho keymaha markaasi uu ka taliyo. sidoo kale xad ayuu leeyahay iyo xuduud, mana gudbo xuduuddiisa. wixii ku soo xadgudbana wuxuu isku dayaa inuu iska caabiyo inta karaankiisa ah. markaasi u fiiriso, waxaad u moodaaba libaaxa in uu u dhaqmayo bini'aadanka oo kale, khaasatan Soomaalida. intaas waa iska kaftan, sidaa iyo nabadgelyo. King 252.